السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال كسو دوادا برنامج كديرية وتطواد والبعض كداوان دونتان شبكة فيسبوك سومالي نتورك ميديا waxaan la socodsiin doonaa toddobaadkan anoo maxamuud cilmi waxa ay igu martay cabdirisaaq wadani isla marhaantana ah aasaasaha ururka ku celi waxa baratay dhulkaaga hooy absaaq warantii ku soo dhaw aad iyo aad baa u mahadsantiin oo ku dhawaad barnaamijka dhiiriye iyo shabakada Somali Network waan ka mahad celinayaa waqtiga fiican oo aad siiseen waata cabdirisaaq warantii waxaad faahfaahin naga siisaa barnaamijkan ku celi waxaad baratay dhulkaaga hooy aad baa u mahadsantahay saaxiib maxamuud runtii barnaamijku ceel waxa bartay dhulkaaga hooyo wuxuu ahaa barnaamij jimi xilli loo baahnaa waxaan ula jeedaa 2016 markaan dhameeyay jaamacadda baa waxa isweydiiyay maxaa hadda jaamacadda dhameystay dalka geyn kartaa marka meelo badan baa ka fakiray wax badan baa maskaxda tuujiyay waxa ii soo baxday in maanta dalku u baahan yahay aqoonta la baranayo in dalka iyo dadka loo faa'iideeyo marka baa waxa ay soo baxday fikradda ah ku cel waxa baratay dhulkaaga hooyo dalka marka ku soo noqday waxa ka hirgeliyay gudaha magaalada Garowe tababarra bilaabay wacyigelin badan baa bilaabay iskuulo bareefadan hirgelinay dhalinyaro badan baa ka aflaxday kuwa ka baxay tababarayaal isku bedelay alxamdulillah rabbil caalamiin wuxuu ahaa marka barnaamij ugu talagalay qof kasta oo wax baranaya aqoonta xitaa ma kuwa naga midkaana kaliya inay fikradu gaarto qof kasta oo aqoon bartay inuu dalka dib ugu celiyo halka waxa arkaysaa arday jaamacad dhameeyay ama dugsi iskuul dhameeyay ama meel kale dhameeyay kaas aqoontiisa dalkan uga faa'iideyn isaguna ka faa'iideysan cid kalena asxu taran marka aqoontaada xataa adoo shaqo ku weyday dalka inuu uga faa'iideystay bixay fikradii marka aan heliyay waxay ahayd in loo baahan yahay aqoonta la baranayo xataa waqti kamid ah qofku waqtigiisa inuu geliyo dalka si wax loogu qabto dalka maanta aqoonyahano badan oo jirana ay chance ay ugu noqoto in la wadaagaan dadka badan ee waxay garanayaan aan garanayn marka fikradaas waxay soo socoto dad badan baa ka aflaxay dad badan baa ku dhiiray dad badan oo saaxiibayaal ka yeelatay meelo badan baa tagnay ilaa heer gobolada Puntland oo dhan gaarno Gaalkacyo Boosaaso iyo degmooyinka gobolka Nuwaal oo dhan oo aan tagno ardayda secondaryada la kulano jaamacadaha la kulano waxyaalo badan oo prestation kala duwan aan jeedino tababaro iyo workshopyo kala duwan aan qabano anagoo marka anagu isku tiirsanahay oo dhanka dhalinyaro ahaan iska sharana midoo baa noqonay maanta meel kasta oo dalka nooga baahan yahayna waxa ka qaban karnaa maanta aaminsan insha Allah waata fikradan ah programkan goorma si toos uga bilowday gudaha dalka gudaha dalka wuxuu uga bilowday barnaamijka sanad guuridiisa kood wuxuu u dabaaldegay 10kii bishii 10aad 2016 markuu sida rasmi ah u bilaabmay waxa 10kii bishii 10aad 2016 ilaa maanta oo la joogo wuxuu wadanka uga socday si rasmi ah habda kala duwanaata marxalada uu soo marayay insha Allah bin Allah waxaan sheegnaa inuu sawna hadda uu sii socon doono aan sii wadi doono maalinba meel ha taagto aan la marto marka laakiin waxa naga go'an waxa kana hore u soo socno waata haatan programkan waxa uu jira in ku dhow 2 sano labadaas sano inta ku dhow waqtigaas muddaas labadaas sano ku dhow maxaa la isdhihi karaa waa niqob sameyn runtii 2 sano waa waqti badan marka loo eego laakiin 2 sano waxa ka muhiimsan wixii aan qabanay arday gaaraysa boqolaal arday baa waxa u sameynay tababaro kala duwan ha noqoto cilmi baarista ardayga in la baro inuu cilmi baaris sameyn karo research sameyn karo xog ururin karo qaabka research ku sameyn la baro in la baro ardaygu inuu noqdo arday xalin kara haddii dhibaato noqoto ha noqoto ardaygu inuu noqon karo arday tababaro noqon karo isagu oo trainer of trainer tababarka la yiraahdo uu qaato wax badan laga baro ha noqoto ardaygu in la baro civic education waxa la yiraahdo maadada wadaniyada ardaygu inuu barto hal la baro arday secondary ku jirta inay yeeshaan waqti maareynta waqtiga ama time management waxa loo yaqaan tababarada kala duwan oo secondaryada ka dhacay oo jaamacadaha ka dhacay waa qaban waxa kale oo qabanay barid wax la yiraahdo oo barnaamijku ka shaqeeya tababarid iyo wacyigelin waqtiga la socota baridaas marka waxa jira dhalinyaro badan oo barafeteer gelisay barafadada waqti kamid ah waxa lagu dhigaa si volunteer dadka wax loogu baraa sidoo kale waxa jirta waxa loo yaqaan aan qabanay wacyigelin mid deegaan mid bulsho iyo waliba mid dhalinyaro inaan qabanay salaano ka taariikhna wacyigelin ka qabanay dhibaatada deegaanka waa inaan wacyigelin ka qabanay waxyaalaha khataraha oo bulshada ku iman kara inaan wax ka qabanay marka 2 sano barnaamijyo noocaas oo kala duwan oo ku saleynayno awoodaheena iyo meesha u socono baan wax ka qabanay dalka waxaan soo bandhignay wax qabadkeeni marka u dabaaldegayna sanad guuradii koowaad
waxaan sameynay inaan charter sameyno ama dastuur ay leedahay dhalinyaradu ay ku dhaqmaan maadaama midow ay yihiin inay leeyihiin xeerar iyo wax kale guddiga inaan qaadano gobolladii aan ka kasbanay maamuladii waliba gobolka Nugaalo aad barnaamijka u taageerayo markasta aanu xiriir joogto la lahayn inaanu ka hirgelino aqoonsiyadiisa iyo barnaamijku inuu si toos uga shaqeeyo waxyaalaha marka labada sano aan qabanay waa inahaas iyo ina kale oo insha Allah bidnillah kale kamid ah hay'ad marka caqabadihii markaasi in soo wajahaya dadka dhalinyarada aad baa mahadsantahay runtii wax ugu weyn oo dadka soo wajahaya marka barnaamij la wado dhalinyarana la yahay waa garanaysaa markii horeba waxaan nahay inaan barnaamijka ku bilownay dhalinyaro isku duuban caqabadana inaan wajahayaan waa ognayn intaana barnaamijka bilaabin waxaan qornay challenge-ga naga hor imaan karna iyo sida uga gudbi doono xagga dhaqaalaha oo kale waa garan kartaa marka maanta barnaamij wadiid laga yaabo inaad xataa safraysid laga yaabo xitaa inaad meel kale inta lug ku aad tagtid adiga dhalinyaro tahay awoodda inta gaarsanta xagga dhaqaalaha oo kale laakiin waxa alxamdulillah rabbil caalamiin inaan wax kasta aan uga soo gudubnay duruufteena iyo isku kaashigeena iyo kalsoonideena dadka beersamshika xagga marka hore ka qabeen oo kale 2016 marka barnaamijka asaasiga dadku barnaamijyada dhalinyarada movement-ga ma jirin oo barnaamijka soconaya dadku marka waxay moodayeen waxay ugu dhahayeen marka meel taga mashruucaagi xagee maraya ama mashruucan yaa in soo siiyay ama mashruuca ka iskale buday dadka oo aan u wacyi gashanayn marka inay iyagu wax isu tag amal ay sameeyaan laakiin alxamdulillah rabbil caalamiin dadku hadda wax fahansan waxaan soo mashruucayn cid kasta leedahay qof kasta oo maanta ku dhigi kara fursadaas aan rabaa ama ku soo dhawaan kara ama fikrad cusub haya uu ku soo dhawaan karaa waxna waa la qaban karaa wixii taagtana nooga baahdana oo ku soo dhaweyn karnaa marka caqabadaas waxaan uga gudbaynaa anoo kaashanayna dadkeena anoo kaashanayna baan uga gudbaynay marka caqabadihii naga soo wajahay wala xasqibaas kamida dhawaan waxa ka dhawaatiseen inaad soo wadaan barnaamij markaas khuseeya la talinta iyo iyada ardada ka baxda dugsiyada sare barnaamijkaas isaga wal nagu wargay سأقتها محمد وهذا كور واحد سمية البارس ير أو كومن أو كسب سنواتين كأرض أو لكل ممرك وجري جامعة ده بربلنا داس واحد كسب بري جامعة بوسا سفر إذا جروا بكسب بنيجي أنا قلت لي سكول هذا دنقريو قرحس يو قبل كن نقال تجمعي كيس يو أفرت سكندري ومقالة جروبية لأنه برامج هذا سجار جارة متخصص سكول كذا وقبتي يفنتوين أي كوضا قبل كنا جامعة كذا وحنا لو ذاك أرض محا عقبة إن هريا البرادات الثانية عقبadaha waxa kamid ah marka maxaa kamid ah caqabadaha waxa kamid ah arday markuu dhaqaale laan wajo ardaygu inuu wajaho la talinaan seelin hagid inuu saneerin xagga problem qoyskiiba inuu wajaho doorasho xagga kaga dhacda jaamacadda inuu wajaho marka waxa noo soo baxay maadaama secondariyada aad ugu jiraan tababaro badan soo siiyay waxa ii baxday inay jiraan arday badan oo la dhibaatoonaysa qaabka jaamacadaha loo garayo iyo inaysan helin ardaydu la talin iyo hagid anagoo dhalinyaro iskaashanayna baa waxaan sameynay inaan sameyno barnaamij la yiraahdo la talinta iyo hagidda ardayda barnaamijkaas waxaan rajeynaynaa bacda ciid insha Allah billaah inaan u qabano in ka badan 500 oo arday inaan u qabano oo gudaha magaalada Garowe ah eventigaas uu noqdo event weyn oo ardaydu ay ka qayb galaan dad waxaan dhibaatooyinka ku dhaceen dad khubaro la xiriira talooyinka bixinay badan bixinayaan inay yimaadaan in ardayda la siiyo la talin in la siiyo ardaydu jaamacad iska doorto maaha inuu saaxiibkii ku raac maaha peer pressure waxa la yiraahdaa inuu saameeyo maaha inuu reerka intuu saga tagay jaamacad meel heeb la idra kor arday maxaa laga rabaa inuu soo weaknesskiisa strengthskiisa yaqaano waxa uu ku fiican yahay arday uu yaqaan deegaan ahaan meesha uu jaamacadda ka dhiganayo inuu yaqaano marka waxaan rabnaa la talin adigu maxaa ku fiican tahay maxaa mustaqbalkaaga weey ma ardayga jaamacadda maanta wuxuu doorto buuliga ahaanaya marka ardaygaas si aan jiirka u dhisno oo uga badbaadin inuu mustaqbalkooda ku dhaco inay drop out noqdaan inaan badbaadino aan u xullo arday kasta awood ah inuu soo wuxuu leeyahay jaamacadda uu ku doorto wuxuu ku fiican doorto hadaa ku fiican tahay caafimaadkiina caafimaadka hadaa injineer ku fiican tahay laakiin marna arday intuu soo ordo inuu jaamacadda suuyaa isqoro maadadaas qoro iska soo ceynaya waxaan rabnaa arday fiican oo jaamacadda aado aqoontaas ma soo baxo marka barnaamijkaasna waxaan ku ogaanay secondary intaan ku jirnay baa ogaaday problemada inta aruuriyay baa ku dhex ogaaday insha Allah isagana waqti dhow soo badhigi doonaa waan rajaynaa arday badan ka faa'iido doonto insha Allah institution kaska ay khusaysan waxaan rabnaa in ay si gaar ah ugu martaqaan abshaaqo markaas waxa sameeyeen baaritaano markaas iskooladii ka tagay
markaas iskoolada gobolka Nugaal bay ku koobnaayeen mise dalku waa balaaraya gobolada bari gobolka bari gaalkacyo oo midowga gobolada kale ma tagtay aad iyo aad gaalkacyo kale anigu waa tagay shaqsaan baa u tagay boosaaso kale tiim ahaan baa u tagnay arday badan oo secondariyada ku jiraan la xiriirnay maamulayaal badan baa la xiriirnay jaamacadaha qayb ka mid ah magaalada boosaaso tagnay degmooyinka ma ka sameeyeen dhibaatadan doorashada maxaa yeelay scope waxa weeye Puntland Soomaaliya dhan way ka sameeytaa problemka laakiin waa deegaanka joogna xarna problemka aragna wax ka qabano dadku in awood u yeeshaan problemka ay arkaan inay wax ka qaban karaan ugu yaraan marka waa problem laga sameeyay problemka ardayda barnaamijka asoon cid ka qayb galaysa maahan maadaama hadda xilli fasax ardaydu ay galayaan oo ardayda foorka hadda xilligooda 12 imtixaanka ay galayso anagu u rajeynayna ardayda dhammaan reer Puntland u fariisanaysa guud ahaan Soomaaliya dhan ardayda u fariisanaysa imtixaanka shahaadiga oo ugu dambeynta ah anagu u rajeynayna guul badan inay soo riixo xarna waqtiga fasaxa ee jaamacadaha ka fasaxayeen iskuulaadka jaamacadda wali gelin inaan barnaamijka uga faa'iideyno ay bartaaneen hadda iyagoo jaamacadii ku dhiiran ay tagaan oo barnaamijkaas ay ka faa'iideystaan marka sidaas ugu dargalay waana dhibaato ay ka sameeyeen waxa jira arday badan oo marka gobolada kala duwan xitaa ku jirto aan u sheegnay barnaamijkaas haddii waqti uu siiyo inay barnaamijka ka qayb galaan oo yimaadaan magaalada Garowe insha Allah bidnar karam awoodina way ahayd inaan meel badan ku qabanno sida magaalooyinka waaweyn oo laakiin maanta awoodina waxa joogtaa inaan Garowe aan joogno ku qabanno waxaa min qorshaysantaa inaad boosaaso tagtaan galkacyo tagtaan aanood magaalooyinka barna tagtaan sida awal aad iyo anagu inta xuduud meelihim dhalinyaro nahay hadda magaalooyinka ay sheegayso dhanba dhalinyaro noo joogta meel kasta dhalinyaro ku leenahay barnaamijka ka tirsan oo barnaamijka la falgalay xitaa kuwa tababar ka qaatay barnaamijka tababaray ba waxay joogaan gobolada kale ayl iyo Buurtino iyo maxaa ku dhahay degmooyinka gobolka Nugaal iyo Boosaaso baraan intaba sanaag dhalinyaro joogta barnaamijka ka tirsan marka waqtigeeda baa tagaynaa insha Allah xalay salaad sidii ku qotaa loo tukada marka waa rajeynayna inaan xilligan ay ku habboon tahay aan tagno wali waxaan rajeynayaa sanad kasta inaan qabano barnaamijkan sanadka marka waxaan rabnaa inaan ka qabano sanadka ku xiga inaan 10 ka barano aan noqono sanadka dambe inaan ka qabano guud ahaan dalka oo dhan inaan ka qabano waxaan rajeynayaa marka cid kasta oo barnaamijka muuqaalka daawo doonta cid kasta oo uu taabto inay barnaamijka dareynayso in ardayda la taliyo lana hago wax fiican loo sheego inay nagala qayb qaataan soo dhaweynana tala ahaan maskax ahaan awood ahaan intaba waa soo dhaweynana inay barnaamijka nagala qayb qaataan aan uga mahad celin doono insha Allah guud ahaan intaas aan kusoo gabagabeynaa barnaamijkii dhiireen waad ka daawanayseen shabakada Somali Network Media waxaa toddobaadkan marti noogu ahaa Cabdi Saaq Wadani oo ah shakhsiga ka soo maxatay fikradda ku celi waxaad baratay dhulkaaga hore inta mid kala mid ah kulmi doono waxaan kaga tegaynaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh